magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta lagu soo dhaweeyay wafdi balaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Nuur Faarax Xirsi. wafdigan waxaa taageerayaal fara badan ay kaga hortageen duleedka magaalada Boorama iyagoo u soo galbiyay gudaha magaalada Boorama. wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Nuur Faarax Xirsi markii ay soo gaareen magaalada Boorama waxay kulan gudaha magaalada Boorama kula yeesheen taageerayaashii faraha badnaa ee ku soo dhaweeyay magaalada Boorama. madashan ugu horeen waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Muuse Carab Dugsiye waxa uuna falanqeeyay ujeedada socdaalka wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha ururka Gurmad ay ku yimaadeen maanta magaalada Boorama. waxaan inii wadnaa maanta walaal inuu keenay qashiisii gobolkaay urur siyaasadeedka la magac baxay Gurmad waxaan nahay diinta iyo Gurmad nahay dalka iyo Gurmad nahay dalka iyo Gurmad nahay dhalinyarada iyo Gurmad nahay. Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo ka tirsan salaadiinta goboladan Awdal Salal iyo Gabiley oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu taageero balaaran u jeediyay urur siyaasadeedkan cusub ee Gurmad oo kamid ah ururada siyaasadeed ee dhawaan lagaga dhawaaqay Somaliland. urur maanta koobinoo tahay maaha waxa weeyaan aad iyo aad baan walaalayaal inii soo dhaweynanaa sidii aan horeba u ballan qaadnay sidii fiicnaydeen Qur'aan noogu soo dhaweyseen sidii barnaamijkiinii aan u caashaqnay waxa weeyaan waanigii hore u yidhi gobolka Awdal cidina inigaga bursan mayso. gabagabadii madashan waxaa ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad Mudane Nuur Faarax Xirsi waxa uuna falanqeeyay ujeedada urur siyaasadeedkoodan loo aasaasay iyo waxyaabaha uu ka bedeli doono Somaliland haddii ay ku guuleystaan talada dalkan. Gurmad in hoggaanka waddanka iyo talada qaranka ay ku soo dhawaadaan qaylidaha ay ka qaataan hormuuda dhalinyarada waddankan ee aqoonta leh ee waxbaratay ee waqtigii ugu wanaagsanaa joogta. kuntirjir uu hogaaminayo in la yidhaahdo dhalinyarada ayaanu ku qabanaynaa dhalinyarada ayaan awoodda waddanka wax ka siinaynaa in lagu beernaxaso dhalinyaradu maaha ee waxaanu leenahay da'da weyne maanta hoggaanka waddanka dib aa uga fadhiiso. waxaan rajaynayaa hadday tahay xaruntii aqoonta iyo markaskii aqoonta iyo dhaqanka ee Somaliland hadday tahay Awdal iyo Salal in aan si fiican soo fadhiisano oo aan barnaamijkeeda iyo afkaarteeda siyaasadeed si fiican ugu qeexno. kadib kulankan ayuu gudoomiyaha urur siyaasadeedkan Gurmad waxa uu xariga ka jaray xafiiska ururkani uu ku yeelan doono magaalada Boorama. si kastaba ha ahaatee socdaalkan maanta uu ku yimid magaalada Boorama gudoomiyaha urur siyaasadeedka Gurmad waxa uu noqonayaa socdaalkii ugu horeeyay oo ku yimaada Boorama tan iyo markii loo magacaabay Mudane Nuur Faarax Xirsi gudoomiyenimada urur siyaasadeedkan Gurmad. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.